aabihiis iyo walaashiis Janet waxay dhinteen isaga oo 7 guur jira. Intaa wixii ka dambeeyay wuxuu ku noolaa nolol qarsoodi u dhow balse loo hagar baxay. Waxbarashadiisii ilaa dugsi sare wuxuu ku qaatay dugsi gaar loo leeyahay oo qaali ah. Jaamacadiisa ilaa darajada labaad oo uu dhaqaalaha uga baxayna wuxuu ku soo dhigtay dalka Australia. Xagga waxbarashada akademiga ah ka sokow, Doris waxay horumarin joogto ah ku waday xirfad kasta ee Alan anfici karta. Wuxuu heer sare ka gaaray xirfadda dagadka ama martial artska, fardafoolka, dabaasha iyo adeegsiga hubka. Koorsooyinkii ay Doris wiilkeeda dalalka fog ugu qaaday waxa uu la yaab badnaa mid la yiraahdo orodka furan oo uu 3 bil ku soo qaatay magaalada Samurai ee dalka Japan. Waa xirfad suurtagelisa in qofku markuu ordayo aanay meelna hakin oo uu darbiyada, malkadaha iyo xir kasta oo halis ah ka boodi karo. Xitaa waxay geysay kawaan xoolaha lagu qabo 3 bil oo uu kawaankaas ka shaqaynayay. Wuxuu bartay siyaabo kala duwan ee wax loo gowraco. Dhiigga ay dadka qaar ka naxaana wuxuu la mid yahay dareerayaasha kale. Maanta Alan waxa ay soo qaban lahaa naxariistii badneed oo hooyadiis iyo falalka bahalnimada ah ee ay faraha kula jirto. Isaga oo noloshiisii hore sida buug marba bal rogay ayuu soo gaaray aqalkii. Gaarigiisii ayuu meel aqal ka durugsan soo dhigtay. Markaas buu si aayar ah gudaha u soo galay. Meel kasto ayuu isha mariyay balse wax laga warwaro ma arag. Qaboojiyihii ayuu furay. Wax aan hilib dadeed ahayn kuma jiraan. Intuu buskut qaanad ku jira la soo baxay ayuu gees la fariistay kadibna wacay shirkaddii tikidhada ee uu xiriirka la lahaa. Diyaaradda ugu sukaysa ee Tumoon aadayso ayuu warsaday. Iyaguna waxay u sheegeen inay caawa midi ka baxayso gegidda Willow. Ma jirnaa ayay yiraahdeen. Markii uu amrayna sidii caadada ahayd ayay u jareen tikid heer ganacsi ama business class ah. Ma aha markii u horeysay ee uu Koonfur Aasiya booqdo. Taniyo yaraantiisii ayuu xasuustaa in sanad walba ay aadi jireen West Babu. Hooyadiis ayaa aad u jeclayd dhaqanka qabiilka Caravan oo ka mid ahaa ilihii ay u raad raacday cilmi baaristii shahaadada PhD-da ay ku diyaarisay. Wax badan ayay daraasad ka samayn jirtay qabiilada weli ku nool kaymaha fog ee aanay gaarin ilbaxnimada casriga ah. Balse sidii uu weynaaday, Alan wuxuu xiriir adag la yeeshay gobolka dacalkiisa horumaray. Dhowr magaalo ayuu ka abuuray ganacsi. Inta badanna wuxuu u dalxiis tagaa jasiiradaha Gili iyo xeebaha xaanida cad ee Bali. Sidii nibiriga hayaanka dheer oo kale way yar tahay meel aanu tagin magaalooyinka dugsada xeebaha badweynta India iyo Pacifica. Caawa safarkiisu waa mid ka duwan kuwii hore. Warshadihiisa ma booqan doono, uma tegi doono ganacsatadii uu xiriirka la lahaa. Maskaxdana kuma hayo qaxwadii Moja Chawa ee uu aroortii xeebaha alasta ah ku fiiqsan jiray. Ganacsigiisii oo dhan wuxuu isku rogay inuu kala dalaalo ruuxaanta teeda san iyo teeda xun. Dhaqan uu u arka wax xun oo xididaystay ayuu dhiig dadeed ku mayraya. Mana isu arko inuu laftiisu dhib ka jiro qayb ka yahay. Inkastoo uu ka duulayo Willow Airport, haddana soo noqodkiisa wuxuu ka dhigtay Hayson Airport. Waa gegi ku taal magaalo u dhow kaynta geerida. Sidii meel uu ka guurayo oo kale ayuu aqalkii ka qaatay wax kasto ee uu islahay waa ku waxtar. Iridii ayuu xiray isaga oo higsanayo meeshii lagu sheegay Ronaldo oo ah wiilka Morgan ee dhagarta badnaa. Waa xarun lagu daryeelo dadka dhimirka la kuna taal bartamaha magaalada Tumoon. 10 saacadood oo safar ah kadib, Alan wuxuu ka soo degay magaalada Tumoon. Muuqaalkiisu kii hore ma aha oo tinta ayaa u guduudan. Gegida banaankeeda ayuu taxi ka qaatay una sheegay inuu geeyo Hotel Manis. Xarunta dhimirka ee uu maamulo Ronaldo iyo hotelkaas waxa u dhexeeya oo qura suuqa hilibka ee ugu weyn magaalada. Waa hotel wanaagsan balse intiisu waa meesha uu ku yaal. Goor ay saqaxa tahay ayuu hotelkii soo galay. Wax waliba sidii uu filayay way ka qurxin yihiin. Waa hotel uu heerkiisu sareeyo, adeegyaduna u dhan yihiin. Ninkii boorsada iridda uga soo qaaday ayaa qolkii uu sii dalbaday u keenay. Durbadiiba gabar furfuran ayaa u timid kuna tiri, soo dhawow mudane. Waxaan filayaa inuu safarkaagu wanaagsanaa. Kadibna adeegyada goobta ayay u soo sharaxday.
qaboojiyahaas cunto fudud baa ku jirta. haddii aad cunto culus rabtana maqaaxida dabaqa koowaad imow. haddii aad masaaj u baahatana balanbalooyinka waxaa kugu diyaar ah shaqaale xirfad leh. fadlan ha iga tegin, musqul baan gelayaa oo dharka ayaan bedelanayaa. waxaan rabaa in aad ii geyso qof xirfad u leh masaajka, ayuu yidhi isaga oo intuu boolsadiisa furay $10 u soo taagay. intaana adigaa leh, waxaa laga yaabaa in aanan hadhow is arag, ayuu u raaciyey. intay qusashay lacagtiina ka qaadata ayay tiri, waa runtaa oo hadda ayaan shaqada ka bixi rabay, balse dharka bedelo si aan goobta masaajka kuu geeyo. daqiiqada kadib ayuu Alan musqushii ka soo baxay, misana gabadhii oo jirkiisa dhisan isha la raacaysa ayaa tiri, fadlan isoo raac. dhowr balanbalo markii ay kala weecatay ayay geysay walanbo qarka ku hayso barkad dabaal oo ubax guduudan biyaha dushiisa lagu daadiyey. haddana intay wax yar isugtay ayay la soo noqotay gabar lagu sifayn karo quruxdii Aasiya. halkaas ayay ka soo dhalla-cadaysay, ilkaheeda cad ee siman iyo indhaheeda kuwii diirada la moodo ayaa qof walba soo jiidanaysa. sidii in ay ku socoto marinkii tartanka quruxda ayay tallaab wanaagsan ku qancisay. halkaas ayay ka noqotay gabadhii soo dhoweysay. Alanna wuxuu war ka sugay gabadha u timid. kulan wanaagsan, magacaygu waa Riimba, ayay tiri iyada oo wax yar hoos isu gaabisay. Alan baa la yidhaa. kulanti wanaagsan, ayuu ugu jawaabay isaga oo gacanta u fidiyey. waxaan filayaa in aad daalan tahay. halkan waxaa ii yaal saliido dabiici ah. inta aanan masaajka kuu bilaabin miyay jiraan waxaad ii sheegayso? maya, waad mahadsan tahay. waxaan filayaa in aan hurdo wanaagsan helo masaajka kadib, ayuu yidhi isaga oo sariirta isku sii fidinaya. dalkee ayaad ka timid? ayay weydiisay. waxaan ka imid dal fog, ayuu ku gaabsaday. Riimba oo aan jawaabtiisa la yaabin baa tiri, waxaa macaamiisheeda ka mid ah nin sidaada oo kale isu qariya, weliba wuu kuu egyahay. haddana qosol dabacsan ayay raacisay. magaciis ayuu ku warceliyey. markasta waan hilmaamaa magaciisa. galabta ayuu hoteelka joogay. wuxuu ka qabtaa magaalada? ayuu weydiiyey. wuxuu maamulaa xarunta dadka dhimirkana lagu daryeelo, ayay tiri iyada oo qoslaysa. waa nin wanaagsan sida aan filayo, ayuu ku kajamay. hubaal waa nin naxariis badan, balse bukaanadiisa ayaa ugu dambayntii dili doono, ayay ku jawaabtay. sabab? bukaanno halis ah ayuu daryeelaa. intooda badan waxaa looga keenay xabsiyada dalka. ma jirto maalin aanay meeshaas qof ku dhiman, ayay tiri iyada oo qiraysa samafalka ninkaas macaamiisheeda ah. Riimba ma doonin inay caawa oo dhan arrinka qof kale ka hadasho. hawsha ay hayso ayaa uga muhiimsan. laakiin Alan intii yareed ee uu kanshada u helay ayuu ka dhuftay xog uu berri ku duuli karo. markii uu waagu baryey ayuu Alan sahansaday. wuxuu sii dhex maray suuqii hilibka. waa meel aanay jirin yaqyaqsi iyo cunto takooran. miisaska hilibkana waxaa saaran xubno ay qaarkood weli nuuxsanayaan iyo nooc kasta oo noolo ah marka laga reebo hilib dadeed. qof weliba waa mashquul. shanqartuna waxay u badan tahay mindiyaha la isku sahayo, yeerta bisadaha iyo eeyaha gowraca sugayo. dad wax gorgorinayo iyo kuwa naadinayo badeecada ay ka cabsanayaan inay ku baarto. xayawaanka qaarkood ee saxaaradaha ku jiro ayuu moodaa inay gargaar ka dalbanayaan. il naxariis leh ayay ku soo eegayaan. waxaad moodaa in xayawaan kasta og yahay sababta meesha loogu xiray. waxaase xaqiiq ah in aanu jirin mid qura oo rabitaankiisa midiyaha hoostooda u fadhiya. markii uu suuqii ka baxay ayuu meel fog uga jeeday xarunta dhimirka Ronaldo oo far guduudan ku qoran. iridda xalaysatay ayuu garaacay. markaas baa waxaa ka furay nin dhallinyaro ah oo ul bir ah gacanta ku haysta. waa nin gaaban, garbo fidsan iyo jir dhisan leh. lana moodo inuu tababar gaar ah ama xirfad ciidan leeyahay. sidii nin dirir ka soo baxay ayuu dhididayaa oo fiigsan yahay. aroor wanaagsan, ayuu ku yidhi Alan. aroor wanaagsan. Ronaldo baan u socday ee ma joogaa? ma joogo, balse gudaha soo gal, ayuu yidhi ninkii oo geesaha nuganayo. gudaha ayuu u soo tallaabsaday.
mise waa meel aan waxba dhaamin suuqii uu soo arkay. Dan walba ayay qayle ka yeeraysaa. Halkaas ayuu uga jeeday nin taayir dhulka yaal ku kada looba ee saxaroonaya. Midna halkaas ayuu derbiga candhuuf ku tufaya, haddana ka tiraya. Mid kale ayaa madaxiisa oo xiran kab ku garaacayo. Midna saxan dhulka yaal ayuu afka ku cunayaa sidii sac aws daaqayo. Waxa ay dhihiisa soo jiitay qol uu u gartay inuu baqaar yahay oo ay ku qoran tahay calafka dadka. In aan erayadaas gaf loola jeedin ayuu iska dhexdhexiyey. Darbiyada qolka waxaa ku yaal waxa uu kala garan waayey saxaro iyo dhiiqo lagu malaasay. Dabcan ujeeddo ayaa ka dambayso ayuu niyadda u sheegay. Ma Ronaldo walaalkiis baa tahay ayuu yiri ninkii oo Alan si quman u eegaya. Maya, samafalkiisa ayaan maqlay. Marka waan soo booqday durbadiiba qol xafiis u eg ayuu geeyey. Warsadayna inuu wax cabayo. Maya, waad mahadsan tahay. Kaliya waxaan rabaa inaan Ronaldo salaamo ayuu yiri Alan oo eegaya muuqaalka derbiga suran. Waa nin tin guduudan daanka bidixna haar ku leh oo la moodo dheegkii Morgan, balse ka da'yar. Calaamadii macatabka ayaa qoorta u suran. Kutub Injiil ahna gacanta ayuu ku haystaa. Waxaa la moodaa Masiixi dhab ah oo soo yar ayaa ka soo fakaday kadib markuu la yaabo sida uu Ronaldo isu maldahayo. Hadda ma joogyo. Bishiiba 10 beri ayuu qobarrada u aadaa inuu kaligiis qalwo yoogi ah ku galo, ayuu ninkii gaabnaa yiri. Sidee ayuu qalwo yoogi ah u samayn karaa isaga oo wadaad Masiixi ah ayuu yiri Alan oo madax xoqanaya. Maya, 6 bil ka hor ayuu qaatay diinta Buddhistaha. Waan gartay goorma ayuu soo noqonaya. 20 bisha ayuu imaanaya. Iga raali noqo, magacaaga kuma weydiin. Aniga Alan baa la yiraa. Anigana Bakti baa la yiraa. Markii uu sidaas yiri ayay qaylo dheer maqleen. Dadka meeshan ku jira way halis badan yihiin. Is ilaali inta aad xarunta dhex marayso ayuu Bakti ku waaniyey. Ma sababtaas ayaad u shambirta ah u wadataa? Waa in aan is ilaaliyo. Bishii hore ayuu nin waalan meeshan ku dilay gabar saaxiibtay ah. Waan ka xumahay. Weli ma xarunta ayuu sii joogaa gacan ku dhiiglahaasi. Isagoo ku kale ayaa dilay oo 2 maalin kama dambayn. Kii dilayna waa halis kale. Soo lagama yaabo inuu dad kale dilo. Waxaa sidaas yiri Alan. Bakti kama jawaabin su'aashaas. Ma doonayo inuu kashifo geesiga saaxiibtiis u aaray. Intuu ushiisii birta ahayd isha ku xaday ayuu ku kaftamay. Adiguna halis ayaad noqonaysaa haddaad meeshan maalmo yar sii joogto. Abbaar ayay Alan iyo Bakti sheekaysteen wax badan oo ay ka midaysan yihiin ayay ogaadeen, sida jacaylka waxbarista iyo weliba in labadooda gabdhihii u alkunaay ay dhinteen iyaga oo aan guursan. Sida uu sheegay Bakti, hadda wuxuu qorsheynayaa inuu furto iskuul lagu barto afka Ingiriiska. Alan isaguna sida uu sheegay intii aanu ganacsiga bilaabin wuxuu ahaa macallin bara af Ingiriiska. Ma igeyn kartaa qobarka uu Ronaldo ku qalweeyo ayuu Alan dalbaday. Haa, balse waa meel cabsi badan. Bakti oo qoslayo ayaa yiri. Meesha uu Ronaldo qalwada u aado waa qobar ay dadka deegaanku ka rumaysan yihiin inay ruuxaan xuni degan tahay. Sheekooyin halis badan ayaa laga wariyaa. Qofkii galana waxaa la runsan yahay in aanu soo laaban isaga oo sidiisii ah. Bakti oo shaqaaliya xarunta la kaftamayo ayaa yiri, haddii aan soo noqon waayo waad ogtihiin meesha aan aaday. Waqti ha ku dhuminina inaad isoo raadisaan. 2 toosh iyo 2 baangadood ayay hore u qaateen sababtoo ah waxaa meesha ku jiri kara jabisooyin, bahalo kale oo halis ah ama wax kale oo aan bala aqoon. Dhanka kale, kaymahan waxay caan ku yihiin mascagalayda adduunka ugu waaweyn ee afka qalaad lagu yiraahdo Komodo. Waa bahal wax kastaba cuna oo qofka dadka ugu xoogan ayay ilbiriqsi baarka iyo caloosha ugala bixi kartaa. Sidaas darteed ma jirto cid halkaas agteeda marto oo dan la'aan nafteeda u biimeynaysa. 2 saacadood oo ay mooto ku socdeen kadib ayay iridda ka soo istaageen qobar ay geedo waaweyn ku ogdan yihiin. Gudaha ayay u galeen.
balse sidii ay filayeen uma aha mugdi. Meelaha qaar ayaa bannaanka u furan oo uu ifku ka soo gelaya. Meelana waa in tooshka la kaashado. Markii ay cabaar socdeen oo uu Bakti ku adkaysanayo in dib loo noqdo ayuu Alan arkay dareere ka soo dhibcayo meel dushiisa ah. Meeshii ay wuxuu ka soo dhibcayeen ayuu farta saaray oo tooshkii ku eegay. Haddana sanka saaray mise waaba dhiig. Qofna ma malayn karin sababta halkaas sare ee dhagax ah uu dhiigu u soo di'i karo. Waxaan filayaa in wadaadkiinu wax aan qalwo ahayn meesha u yimaad, ayuu yidhi Alan oo yaab muujinayo. Iyaga oo faraha foodooda ku taagsanayo ayay hore u dhaqaaqeen ilaa ay tageen salka qobarka. Waxay ku arkeen dhar dumar iyo boorsooyin meel ku risaysan. Halkaasna waxay uga jeedeen naag la dooxay oo laga jaray faraha lugaha iyo kuwii gacmaha. Haddana waxaa u muuqday miis mara guduudan lagu daday oo ay dhowr shuma dul saaran tahay. Meel qol yar la moodo oo bidixda uga aadan ayuu Alan u leexday. Mise waa irid shabaq leh. Isha ayuu la raacay isaga oo u gacan haatinayo Bakti oo sii durkayo. Waxaa shabaqa ka gadaaleeyay dhowr mascagaleey oo afka dhareer ka wada daynayo. Sidii in wax la siin rabo ayay caasha wada taagayaan. Iyaga oo ku dhaygaysan xubno dadeed oo qolka dhex daadsan ayay maqleen shanqar la moodo dhagax meel ka soo dhacay. Hal mar ayuu Bakti jeestay oo gadaal u cararay. Alanna wuu ka daba orday. Markii bannaanka lagu kulmay ayuu Bakti oo neeftuuraya yiri, saaxiibtayna sidaas baa loo dilay. Sidee? Alan baa hubsiimo u warsaday. Waa la dooxay oo faraha ayaa laga guray. Sidee ku ogaatay in ninkii waalnaay ee aad ii sheegtay uu saaxiibtaa dilay? Ronaldo ayaa noo sheegay inuu arkay isaga oo cunayo farihii oo saaxiibtii ka guray, ayuu Bakti cod gariiraya ku yiri. Mootadii ayay ku soo dhaceen. Waxay malaynayaan in aanu Ronaldo meel dheer jirin. Si daran ayay mootada u kaynaaniyeen. Si taahoo ay geeri ka fakanayaan. Bakti isagu wuxuu ogaaday cidda dishay saaxiibtiis. Alanna wuxuu ka cabanayaa in wixii uu qobarka ku soo arkay dartood uu caafimaadkiisu halis ku jiro. Wuxuu soo xasuustay erayadii hooyadiis ee ahaa, Alan wuu waalan lahay haddii uu maalintii qobarka nala joogi lahaa. Ma laga yaabaa in qobarkani ahaa kii ay hooyadiis tilmaamaysay. Markii ay magaalada soo galeen ayuu Alan yiri, wixii aan arkay darteed ayaan gariirayaa, sokorna inay ugu kacdo ayaan ka cabsanayaa. Fadlan nagey meel aan wax ka cunno. Maqaayad uu hore u yaqiin ayuu Bakti mootadii hor joojiyey. Meel dadka kale ka durugsan ayay fadhiisteen. Wax yar kadibna mid shaqaalihii ka mid ah ayaa dhankooda u soo dhaqaaqay. Wax kasto oo ay kula ahaato noo dalab, balse aniga tayda ka dhig wax aanu hilib ku jirin, ayuu yiri Alan oo eegayo Bakti iyo shaqaalihii oo afkooda ku wada hadlaya. Markii ay cunteeyeen kadib waxay meeshii fadhiyeen muddo saacad ku dhow. Bakti wuxuu ka murugsan yahay xaaladda cusub ee u dah furantay. Aanadii saaxiibtiis ayuu helay cid loo raacdo. Xaruntii uu ka shaqaynayay iyo waxaa isula ekaaday qobarkii uu soo arkay. Arrimo badan ayuu maankiisu rogrogayaa. Si taas ka duwan, Alan waa nin arrintan iyo wax ka daranba u soo joogay. Wixii uu maanta soo arkayna waxaa ka daran wixii uu filayay. Alan wuxuu Bakti siiyey qorshe wanaagsan oo uu ku aarguto. Wuxuu u sheegay inuu shaqadiisa sii wato ilaa uu Ronaldo ka soo noqonayo. Xilli uu dagan yahay eego oo baangad madaxa kala dhac. Qolkana soo geli mid ka mid ah bukaanada waalan. Kadibna caawimaad u qayli. Waayo aragnimo u qarsoonaad ayuu si dadban ula wadaagay. Bakti isaguna wuxuu xaqiiqsaday inuu haysto fursad oo bahalkan dilaaga ah dadkiisa uga qaban karo. Saaxiibtiina ugu aari karo iyada oo aanay cidna ogaan. Alan wuxuu Bakti u ballan qaaday haddii tayada adeegyada ee xarunta dhimirka la wanaajiyo inuu shakhsiyan u caawin doono. Hay-ado taageerana ku soo xiri doono. Baktina halkaas buu ka dhex arkay fursad kale oo ay bukaanadu ku heli karaan daryeelkii ay mudnaayeen. Magaca Alle, noloshayda oo dhan baan siinayaa si aan dadkan xaaladooda u wanaajiyo, ayuu yiri Bakti oo farihiisa saaraya wejiga iyo labada garab.
ma kirishtaan baad tahay? haa, waxaan ahay katoolig. aniguna katoolig baan ahay. mar labaad ayay isi salaameen iyaga oo dareemay inay noqdeen walaalo xagga caqiidada ah. hal talo ayaan ku siinayaa oo aad ku liibaanta, ayuu yidhi alan. xiriir wanaagsan la yeelo dhulka iyo cerka, arrimahaaguna way hagaagayaan. haddana wuxuu sii raaciyey aayadda injiilka ee tiraah, way liibaaneen kuwa naxariista, waayo ayagana waa loo naxariisan doonaa. alan wuxuu marmarsiya ka dhigtay inuu shir ganacsi ka qaybgalayo oo uu daahsan yahay. sidaas darteed taleefankii bakti ayuu qortay, wayna kala tageen. alan wuxuu ku soo noqday hoteelkii isaga oo ka fikirayo tallaabadiisa labaad. baktina wuxuu aaday goobtiisii shaqada isaga oo waxa uu samayn doono. alan habeenkaas wuxuu hoteelka kula kulmay Rimba, gabadhii masaajka. si fiican ayay isu sii barteen. waxay ogaatay inuu alan yahay qof naxariis badan oo gacan furan, isaguna wuxuu bartay inay tahay gabar caqli iyo xirfad badan. maalinba maalinta ka dambaysa way isaga soo dhowaanayeen intii hore. muddo 2 toddobaad ahna waxay ahaayeen kuwa hoteelka ku kulma ama magaalada isu raaca. waxay u noqotay haga wanaagsan iyo jaar lagu kalsoon yahay. waxaad moodaa inuu alan hilmaamay sababtii uu dalkan u yimid, oo jacayl la yaab leh ayuu jilayaa. Rimba iyaduna macaamiil kale oo ay qadarin jirtay ayay hilmaamtay. 3 beri markii la dhaafay xilligii uu Ronaldo ka soo laabanayay qobarka oo qalwada ku galo, ayuu alan warsaday Rimba inay war ka hayso ninkii samafalaha ahaa. ma ogin miya waxa dhacay, ayay ku tiri alan. ninkii waxaa doraa dilay nin waana oo xarunta ku jiray. miyaa la xiray xaruntii, ayuu yidhi alan. maya, balse wasaaradda caafimaadka ayaa ballan qaaday inay dhismaha iyo agabkaba wax ka beddelayaan. waan ka xumahay geerida Morgan, ayuu yidhi isaga oo ishilmaamay. sidee ku garatay magaca aabbihiis, ayay tiri tiyo yara madaxa dadabtay. shaqaalaha hoteelka ayaan ka maqlay, ayuu yidhi alan. runta ii sheeg, waadna isu egtihiin ee maxaa idinka dhexeeya adiga iyo Ronaldo? alan ayaa yidhi, dabcan waxaa naga dhexeeya in aan isku jinsiyad nahay, uuna ii eg yahay sida aad ii sheegtay, ayuu yidhi alan oo muujinaya dhoola caddayn aan wakhtigeedii la joogin. alan dhib weyn ayuu ku qabaa sirta uu carabku ka dafo. waa qayb noloshiisa ka mid ah aanu waxba ka beddeli karin. maxaa ka walwal badan marka cidda ugu daran ee aad ka cabsanayso inay ku fashiliso ay tahay afkaaga oo aanad u talin karin. Rimba si ka duwan furfurnaantii hore ayay alan u nabadgeliyeysay. markii iridda ka baxdayna waxay aaday dhankii xarunta dhimirka. alanna intuu qolkiisii soo galay ayuu wacay xafiiska duulimaadka, kana codsaday in tikidhka looga dhigo isla caawa. sidii uu rabay ma noqon, balse duulimaadka berri barqadii ah ayaa lagu qoray. markan abbaartiisu waa afaafka kayntii geerida. alan alle ayuu ka baryayaa in aanu ku fashilmin sababta uu dalkan u yimid. wuxuuse isu arkaa nin sabab wanaagsan u dagaalamayo. ma jirto gacan aadani oo nadiif ah, balse qaar baan dhiigga laga mayrin. alan isaga gacmihiisu inta ay dhiig daadiyaan waxaa ka badan inta uu alle u hoorsado oo uu dembi dhaaf ka baryo. markii uu wadna dadeed cunaba wuxuu alle ka tuugaa inuu wadnihiisa daahiriyo. socdaalkiisuna wuxuu noqday mid geeri la xiriira. xitaa diyaaraddii uu soo raacay intay hawada ku jirtay wuxuu ku hedlanaa allabari, balse markii uu dhulka yimid wuxuu noqday sida gorgor samada ka soo eegayay wax dhintay. mar kastaba isaga ayaa ah qofka nool ee dul taagan meel lagu leeday. aroortii xigtay ayuu alan u soo baxay barxadda hoteelka si uu ugu quraacdo. waxaa u harsan wax aan 2 saac ka badnayn inuu gegida ku gaaro. farxad iyo walwalba wuu qabaa, balse waxa uga daran ee uu filanayo waa geeri. iyaduna balwadiisa ayay ka mid noqotay. isaga oo quraacanayo ayaa waxa u yimid mid shaqaalaha ka mid ah. waa gabar
inta badan miiska soo dhoweynta fadhiisata. alan ma maqasho xalay waxa dhacay, ayay tiri iyada oo bogga gacanta ku haysa. maya, riimba waxaa xalay lagu dilay xarunta dadka waalan lagu daryeelo. maxaa tiri, ayuu yidhi alan. maxay ka doontay meeshaas halista ah? xarunta ayaa lagu dilay, kadibna bannaanka ayay u soo tuureen. masuun bay siiyeen, ayuu ku yidhi alan. maya, ee qoorta ayay ka jareen, kadibna beerka iyo wadnaha ayay kala baxeen. markuu erayadaas maqlay ayuu afka gacanta iska mariyey sidii qof wax uu cunay iska tirayo. waa arrin argagax leh, ayuu yidhi isaga oo kursigiisa ku sii santeecsanaya. iyaga oo sidaas u wada hadlaya ayaa waxaa ku soo baxay maamulihii hoteelka oo gabadhii si canaan leh u yidhi, fadlan orod goobtaada shaqada ku laabo. haddana intuu alan u soo dhowaaday ku yidhi, ka raalli noqon haddii gabadhu war naxdin leh kuu sheegtay. arrimahan adduunka meel kasta ayay ka dhacaan, balse waa wax dalkan ku cusub. sidee ayaad u aragtaa joogitaankaaga hoteelkan? aad ayaan ugu faraxsanahay, waa hoteelkii labaad ee soo dhoweyntiisu i qanciso 20 sano ee aan safrayey, ayuu yidhi alan oo iska dhigayo in erayada ninku ay qalbigiisa ka mayreen warkii naxdinta lahaa. shaqaalaha hoteelku aad bay u ammaaneen dhaqankaaga, ayuu yidhi maamulihii oo qoslaya. wuxuuna sii raaciyey, maalin kasta war wanaagsan ayaa iga soo kaa gaarayay. sidaas darteed, maadaama asaaka baxayso, waxaan kuugu imid in aan ku nabadgeliyo iyo in aan kuu sheego in 2 beri ee u dambaysay ay bilaash ku ahayd kirada qolku. alan baa istaagay oo isaga oo qoslaya sanaan u fidiyey maamulihii. aad ayaad u mahadsan tahay. 40 beri kadib ayaan soo noqonayaa, balse waqti hore ayaan hoteelka soo wacayaa si qolkayga laygu sii diyaariyo. mar walba soo dhoweyn baad mudan tahay. kulanti dambe oo xiise leh, ayuu yidhi maamulihii oo sii dhaqaaqayo. alan intuu si degdeg ah qolkiisa ugu laabtay ayuu alaabtiisii soo urursaday. nasiib ayuu leeyahay, haddii aan loo daba joogin sir ay riimba bixisay, waxaa laga yaabaa in ay dileen ciddii ay sirta u sheegi rabtay, ama in ciddii ay sirta ka qaaday ka daba tagtay. cid kastaaba ha disho, balse alan shaki ayuu ka qabaa waxa ay hoos isugu sheegayaan gabdhaha hoteelku. qaar way dhoola caddaynayaan, qaarna wejigooda oo murugo ka muuqato ayay isaga soo eegayaan. intuu u gacan haatiyey ayuu bannaanka uga soo baxay hoteelkii laga jeclaaday. habeenkii saqdhex ayuu alan ka soo degay haysam airport. 20 kilomitir ayay u jirtaa keynta geerida. sidii qof malagii geerida ka baxsanaya oo kale ayuu u degdegayaa. tiiraanyada wejigiisa ka muuqata ayaad moodaa qof u socda dagaal aan guushiisa la hubin. tagsigii uu geeridii ka soo raacay ayaa keen hotel Camwell oo uu qol hore uga sii dalbaday. hoteelku wuxuu ahaa gashiin oo habeenkaas ayuu seexday. aroortiina intuu alaabtiisii gashaday sanduuq uu boosada ka kiriistay ayuu in yar boorsa ku qaatay. xilli barqadii ah ayuu tagsi qaatay isaga oo u jeeda docdii keynta geerida. markii keyntii lala simay ayuu haddana wado dhanka waqooyi aadaysa ka dalbaday in lagu leexiyo. waa wado jax ah oo la moodo in gacanta lagu falay. geedaha aan qarniyada la jarin ayaa cirka ka qarinayo. inkastoo uu xilligii kulaylaha lagu jiro, haddana howdka ay dhex marayaan ayaa mugdi iyo cabsi ah. goor ay heejadaas gaariga la xaluulanayaan ayuu alan yidhi, halkan ii jooji. mudane, ma hubtaan in meeshani tahay halkii aad u socotay, ayuu yidhi darawalkii oo uu arrinku la silan yahay. la soco qaybta afraad ee taxanaha dadqalkii naxariista badnaa.